السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال iyo marwooyin meel walba waa daafaca caalamka nagala jaan qaadaysaan halkani waa ESTV ku soo dhawaada warkii oo saacadahan oo kala aad nooga barateen inaan si toos idin ka soo tabinay stuudiyaha ESTV magaalada Jigjiga qodobada ugu door karona wararkan idin ku haynana waxa kamid ah xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa tababar ku saabsan nidaamka maamulka maaliyadaha u qabtay mas'uuliyiintii dhawaan loo magacaabay degmooyinka komishinka anshaxa iyo ka hortagga musuqa ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kulan wacyigelin ah oo ku saabsan la dagaalanka musuqa u qabtay shaqaalaha degmada Qabri Bayax qurba joogta gobolka Jarar oo socdaal ku marayay degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Jarar ayaa booqday biyo xidheenka degmada Yoocale ee gobolkaasi Jarar qodobada kale wararka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah waxa magaalada Adhaama ee deegaanka Oromada ka furmay shirweyne ku saabsan sidii looga gaashaaman lahaa khatarta shilalka baabuurta intaas akhyaare waa qaar kamid ah qodobada wararka ku daawan doontaan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsanba u diyaar garooba markale kulanti wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa tababar ku saabsan nidaamka maamulka maaliyadaha u qabtay mas'uuliyiintii dhawaan loo magacaabay degmooyinka Maxamed Jirde Ismaaciil ayaa warbixin muurtaasi ku saabsan inoo soo koobaya tababarkan oo uu soo diyaariyay xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa loo qabtay gabdhihii dhawaan loo magacaabay mas'uuliyiinta degmooyinka tababarkaas oo ku saabsan nidaamka maamulka maaliyadaha ee BFM-ka oo ka kooban shuruucaha maaliyadeed oo dhameystiran waxaana furitaankii ka hadlay wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Axmed Cabdi Maxamed oo sheegay inay tababar kor loogu qaadayo aqoonta nidaamka maamulka maaliyadeed ay u bilaabeen gabdhihii dhawaan xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay magacawday degmooyinka kaasoo ku saabsan hirgelinta shuruucda maaliyadaha wuxuuna sheegay in taageero joogto ah laga siin doono degmooyinka cusub dhanka maaliyadaha wuxuuna kula dardaarmay inay si fiican ula socdaan casharrada muddada uu tababarku socdo nidaamka maaliyadeed uu fara badan yahay waxa weeye mataqaanaa BFM-ka guud ama public financial waxa weeye mataqaanaa expenditure-ka ama public financial management-ga nidaamka guud ee maaliyaddu macnaha BFM baa si guud la isugu yiraahdaa public financial management laakiin daladaas waxyaabo badan baa si hoos taga oo maxaan ku raday la xiriira oo technically iyo maxaan ku raday nidaam maaliyadeed oo hufan sidii loo helaa marka general overview-ga maxaan ku raday BFM-ka ayaa tababarka ku qaadanaysaan gabdhaha waxa weeye mataqaanaa xukuumaddu tixgelin bay siisay tixgelin gaar ah ayay siisay tixgelintii la siiyayna ilaa hadda kuma aanan khasaarin oo faa'iidooyin badan ayaa gabdhihii idinka horeeyay maaliyadaha lagu madhabay waxa weeye mataqaanaa aan ka dhaxalay maadaama oo faa'iido aan ka helay la sii xoojiyana way mudan yihiin haddii la yiraahdo tababarkan oo ah mid kor loogu qaadayo aqoonta nidaamka maamulka maaliyadaha oo socon doona muddo 15 maalmood ayaa waxa lagu baran doonaa qorsheynta iyo miisaaniyadda qiimeynta iyo dabagalka nidaamka kharash bixinta maamulka lacagaha nidaamka xisaabaadka maamulka iibka iyo hantida dawladda hanti dhowrka gudaha nidaamka cadcadaanta iyo isla xisaabtanka miisaaniyadda waxaana la filayaa tababarkan inay ka soo bixi doonaan hawlo wax ku ool ah komishinka anshaxa iyo ka hortagga musuqa ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kulan wacyigelin ah oo ku saabsan la dagaalanka musuqa u qabtay shaqaalaha degmada Qabri Bayax Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixin muurtaasi ku saabsan inoo faahfaahinaya iyadoo laga duulay sidii looga mir dhalin lahaa qorshaha 5 sano ee kobaca isbeddelka dhaqaalaha dalkeena looga saarayo saboolnimada ee wajigiisa labaad isla markaana ku qotoma yoolasha horumarineed nabadgelyo dimuqraadiyadeed iyo maamul suuban iyo waliba la dagaalanka saboolnimada ayaa waxa laga maarmaan ah sidii loola dagaalami lahaa musuqa si markaasi loo kobciyo loona joogteeyo geedi socodka horumar dhaqaale iyo dimuqraadiyadeed ee deegaanka ka jira ee habsami u isticmaalka kheyraadka deegaanka sida ugu haboon ayaa haddaba si loo helo bulsho ku baraarugsan waxyeelada iyo cawaaqib xumada musuqa uu leeyahay ayaa komishinka
komishinka anshax iyo kahortagga musuqa dowladda deegaanka Soomaalida oo sii wada kulamadii wacyigelinta ahaa ee uu qabanayay shaqaalaha iyo bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu qabtay kulan wacyigelin ah shaqaalaha degmada magaalada Qabri Bayax iyadoo ahmiyada kulankan wacyigelintan ay ahayd sidii markaasi xubnahani faham looga siin lahaa musuqa iyo dhibaatooyinka uu leeyahay waxaana ugu horreyntii ka hadlay kulankan wacyigelinta ah komishineerka komishinka anshax iyo kahortagga musuqa dowladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamuud Cabdiqaadir Maxamuud oo uu ifiyay xubnahani dhibaatooyinka musuqa uu leeyahay iyadoo sidoo kalena uu ku booriyay xubnahani sidii markaasi ay si wada jir uga hortagi lahaayeen wax kasta oo sababi kara musuq kulley ujeedada maanta tababarkiinan haddii aan idiin sheego bal waa sidii micno guud looga qaadan lahaa dagaalka musuqmaasuqa weyn wuxuu yahay musuqmaasuqu micnihiisa waxaa ku jira oo kale sharciyada shuruucda lagula dagaalamayo noocyooyin maxaa ka mid ah masjid dambiyada kale mid ka duwan yahay marka balina shuruucda sharciyada aad bartaan waa koob in micnihiisa laftiisa aad fahantaanna waa labo in isagana maamulka suuban dimuqraadiyadda sida caqabad ugu yihiin waxaan idinkula dardaarmay saacadaha shaqada geestiisa waxaa isaguna ka hadlay kulankan wacyigelinta ahaa gudoomiyaha degmada Qabri Bayax mudane Cabdirasaaq Aadan Cabdi oo halkaasi ka xusay in musuq uu yahay mid ragaadin kara howlaha horumarka ee ka tisqaaday deegaanka Soomaalida musuq noocyadiisa aad buu far badan yahay xaqiiqiyan aad buu badan yahay laakiin doorkayna iga aadan waxa weeyaan koow xilliyada saacadaha shaqada waa koow marka guud ahaan waxa weeyaan waxaan u dhihi karnaa komishinka la dagaalanka iyo musuqa wax weyn ayuu ka qabtay isbedelka xawliga ah ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka hana qaaday xaqiiqiyan waxaad ogsoontiin 6 sano ka hor ama 5 sano ka hor deegaanka meeshuu joogay iyo maanta meeshuu joogay isbedelada la keenay haddaba intii uu socday kulankan wacyigelinta ahaa ayaa waxaa casharada ka bixinaya khabiirada ka howlgala komishinka anshax iyo kahortagga musuqa ee heer deegaan iyadoo markaasi casharada ay ku qaadanayeen xubnahani ka faa'iidaystayaasha kulankan ay ka mid ahaayeen micnaha guud ee musuqa qaybaha uu kala baxo musuqa tubaha iyo xeeladaha lagula dagaalamo musuqa muhiimadda dakhliga uu leeyahay iyo weliba hirgelinta mabaadi'da xidhmooyinka maamulka suuban gabagabadii kulankan wacyigelinta ah ayaa waxaa dhankooda waraysi la yeelanay qaar ka mid ah xubnihii ka faa'iidaystay kulankan si cusub ayaan uga update gareeyay tababarku aad buu runtii u wanaagsanaa tababaradii hore mid ka cajiibsan buu ahaa kulli faham ballaaran waan ka helnay waxaan anigu ku baaqi lahaa marka dowladda deegaankeena imaka musuq uu ka wada dhaadhicsan yahayba maxay ahaydee heesihii musuqa dabargoynaya oo sharciga meel marinaya dakhliga kii loo diro cashuurta soo ururiya sidii loogu talagalay inuu u keeno nin walba xilka la saaray wada taqaana xaadana ma ahaato xilka la saaray ma taqaanaayo inuu guto haddaba tababaradan wacyigelinta ee uu wado komishinka anshax iyo kahortagga musuqa dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay qayb ka yihiin tababaro isdaba joog oo markaasi komishinka uu qabanayo shaqaalaha iyo bulshada ku dhaqan deegaanka kuwaas oo markaasi looga wacyigelinayo sidii looga fogaan lahaa musuqa iyo dhibaatooyinka uu leeyahay qurbajoog ka soo jeeda gobolka Jarar oo socdaal ku maraya degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkaasi Jarar ayaa sidoo kale waxa ay booqdeen biyo xidheenka degmada Yoocale ee gobolkaasi Jarar wariye Farax Bade ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo soo koobaya qurbajoogta u dhalatay gobolka Jarar oo socdaal ku gaala bixinaya degmooyinka gobolka Jarar ayaa gaadhay degmada Yoocale ee gobolka Jarar halkaas oo bulshada iyo maamulka degmada Yoocale ay si diiran oo ayna u kala harin ugu soo dhaweeyeen ciyaar dhaqameedyo ay ugu muujinayaan qurbajoogta kalgacalka iyo xiisaha ay u qabaan waxayna bulshadu kaga hor yimaadeen qurbajoogta iyagoo caleemo qoyan u ruxaya koonaha degmada Yoocale soo dhaweyn kadib ayaa waxay qurbajoogta booqdeen mashruuca biyo xidheenka ee sanadka 2018 laga fuliyay degmada Yoocale ee gobolka Jarar waxaana sharaxaad uga bixiyay qurbajoogta ujeedooyinka loo dhisay mashruucan gudoomiyaha degmada Yoocale dhaamkan waxa lagu talagalay markii ugu horeysay laba ujeedo ama dhismihiisa hore beesku ah labada ujeedo in waraabna loo isticmaalo cabidna loo isticmaalo siba xoolaha nool maadaama aagan yahay dadka ku dhaqanayeen xoolo dhaqato in xooluhu ay ka cabaan beerahana daraasaadkii la sameeyay waxa loogu talagalay halkan inay beero badan runtii ay ka baxaan haddaba intay qurbajoogtu ku guda jireen booqashadooda aan wareysi la yeelan ayaa waxay sheegeen in mashruucan uu yahay mid aad u farxad geliya isla markaana uu yahay mid bulshada ka qabtiraya baahida dhinaca biyaha iyo waraabka beeraha dhaamka Yoocale oo aad iyo aad u ballaaran una biyo badan hadda waxaan ogaanay oo hubsanay oo indhaheena ku aragnay inay tahay biyaha koowaad labaad saddexaad afraad iyo shanaad aan gaarsiinay maadaama oo meel kasta oo dad ugu tagnay aan arkayna ama ceel ama dhaam aad iyo aad aan ugu faraxsanahay qurbajoogta u dhalatay gobolka Jarar ayaa sii wadi doona booqashada iyagoo dhammaan soo maraya mashaariicaha horumarineed ee laga fuliyay sanadihii ugu dambeeyay degmooyinka gobolka Jarar
kulan lagaga wada hadlayay waxqabadkii sanada 2008 iyo qorshaha 2009 ayaa waxa uu ka qabsoomay degmada Qobi. wariye Cabdikaafi Axmed Wali ayaa warbixin muurtaasi ku saabsan inoo soo diray. kulankan oo ay ujeedadiisu ahayd mid lagaga wada hadlayay waxqabadka sanadkii tagay ee 2008 tirsi taariikheedka dalka Itoobiya iyo qorshaha waxqabadka sanadkan cusub ee 2009 ayaa waxa kulankan ka soo qayb galay dhammaanba waxgaradka qaybihiisa kala duwan ee ku dhaqan degmada Qobi ee gobolka Erara. kulankan oo ay hogaaminayeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka degmada Qobi ee gobolka Erara ayaa waxa ugu horeyn madashaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Qobi Mudane Shaafi Axmed Khalife. guddi dawagala oo ilaa bulshada qaybeeda kala gudbsanaa ka samaynaya degmada ka jira waxaan isla soo xaqiijinay 2008 qorshihii degmada Qobi sanad miisaaniyadeedkii in 100% u fulay eegana waxaan u diyaar garoobaynaa 2009 si ay shaqooyinkeena aan si dardar gelino inagoo bulshada iyo dawladda warkaxayntaan saysanno iyo ciidamada gaarka sida hadda ka horba aan ku gaarnay guusha iyo horumarka maanta aan haysano inaan si loo jibaarnay noqono insha Allah hadii la yiraahdo. dhankiisana Maxamed Caydiidi Axmed oo kamida qurba joogta u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo booqasho hawleed ku gaaray degmadaasi oo kulankan kala qayb galay shacabka degmada Qobi ayaa bogaadiyay horumarka baaxadda ballaaran ay ku tallaabsatay degmada Qobi isagoo u mahad celiyay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa uu na sheegay inay qurba joogtu diyaar u yihiin inay shacabkooda kala faa'iideystaan horumarkan baaxadda ballaaran ee ka qaaday guud ahaan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. sidoo kalena madaxa wakaalada dakhliga degmada Qobi Mudane Cabdicasiis ayaa shacabka ku booriyay inay kaalin mugla ka qaataan soo saarista ilaha dakhliga si looga midho dhaliyo yoolka iyo istiraatiijiyada horumarineed ee u dejisan degmadaasi. horumarkan baaxadda leh ee jidad leh biyo leh waxbarasho leh caafimaad leh dhammaan waxa lagu fulinayaa waa dakhli weeyaan dakhli la soo ururiyay baa lagu fulinayaa hadda waxaan ku baaqayaa maadaama oo sanadkii hadda uu cusub yahay oo sanadkii qorshihii 2009 hadda uu nagu soo foodiyay dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan inaad macnaha aad ka qayb qaadataan. dhankoodana waxgaradka ku nool degmada Qobi ee gobolka Erara ee ka soo qayb galay kulankaasi ayaa sheegay in waxqabad taabagalay laga fuliyay degmada Qobi sanadihii la soo dhaafay xilli xaadirkan ay u diyaar garoobeen qorshaha horumarineed ee sanadka cusub ee 2009 horumarka degmada Qobi ka socda maxaa ku dhaca aad buu tayo u leeyahay aad baan ugu faraxsanahay way nooga midho dhalisay midhaheedii hadda waan cunaa waan ku manaafacaadnay waan ku nasanay. Cabdikaafi Axmed Wali telefishinka caalamiga ah ee ESTV degmada Qobi ee gobolka Erara. gudoomiyaha gobolka City Mudane Cabdiwali Maxamed Faarax ayaa sheegay in dhalinyarada deegaanku ay kaalin buuxda ku leeyihiin horumarka deegaanka. wariye Maxamed Ciise warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo faahfaahinayana waa kan. gudoomiyaha gobolka City Mudane Cabdiwali Maxamed Faarax ayaa sheegay in dhalinyaradu ay kaalin buuxda ay ku leeyihiin horumarka qaybihiisa kala duwan ee deegaanka iyagoo dhanka kalena ka faa'iideysanaya fursadaha loogu talagalay abaabulka iyo dhiirigelinta dhalinyarta. waxaana gudoomiyaha ay wehelinayaan maamulka degmada Dambal ay xadhiga ka jareen iskaashatada qaybinta sharaabka kala duwan ee higsiyo horsocod oo ay markaasi aasaasteen qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan degmada Dambal. haddaba munaasabadii xadhiga lagaga jariyay iskaashatadani higsiyo horsocod ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sare oo ka socotay gobolka City iyo degmada Dambal odayaal dhaqameedka culumowdiinka hooyooyinka dhalinyarada iyo bulshada kale ee markaasi ku dhaqan degmadaasi. iskaashatadan oo ka howlgalaysa degmadaasi Dambal ayaa waxaa si rasmi ah xadhiga uga jaray gudoomiyaha gobolka City Mudane Cabdiwali Maxamed Faarax oo wehelinayo kusimaha gudoomiyaha degmadaasi Dambal. xadhig jarkan kadib ayaa maruu gudoomiyaha gobolka City Mudane Cabdiwali Maxamed Faarax uu ka hadlayay munaasabadan uu sheegay inay dhalinyartani dadaal ballaaran ay sameeyeen sidoo kalena cadeeyay inay dhalinyaradani guul weyn ka gaadheen higsigooga iyo yoolkoogiba dhalinyarada kalena looga baahan yahay inay ku daydaan. meeshaan aan xariga ka jirnay saad inay muuqataan waxa weeye waa iskaashatada dhalinyarta higsiga iyo horsocod. ilaahay idanka waxaan ka baryaynaa inuu dhalinyarada ka dhigo kuwa lagu tamaamo oo bulshadooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyaguna wax qabsada ummadana u faa'iideeya. dhalinyarada kale ee gobolka City iyo dhammaan kuwa deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay sida dhalinyaradan iskaashatada magaalada Dambal dadaalka dheeriga ay galeen oo kale
in dhallinyartu ay meel ay joogtaba is abaabusho. dhankooga qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan odayaal dhaqameedka iyo hooyooyinka ee ka soo qayb galay munaasabadan waanu goobtaasi waraysi kula yeelanay ayaa sheegay inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin shaqo abuurka ay sameeyeen dhallinyaradani ayna soo dhaweynayaan. xafladan aan ka soo qayb galay waa mahad ilaahay ururka dhallinyarta waan soo dhaweynaynaa. halkan waxaan deganahay magaalada Dambal duqeyda magaalada kamida ayaan ahay. qaar ka mid ah dhalinyarada oo isugu jirtay xubnaha iskaashatada iyo dhalinyarada kale ee magaalada oo aan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan iskaashatadan ayaa cadeeyay inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin iskaashatadan ayna tusaale u tahay guud ahaanba dhalinyarada deegaanka. maanta aad baan ugu faraxsanahay tallaabadeedii in ay ku dhammaystiranto qaybtii aan u qorshaynay qaybinta biyaha iyo sharaabka kala duwan magaalada Dambal in xadhigga nalooga jaro oo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyihii degmada ay xadhigga nooga jaraan. horumarka aan samaynayna ay ugu yar tahay in la maqlo ay ugu yar tahay ayna ugu weyn tahay sida aan arkayo in la taaban karo shaqadeedii iyo horumarka aan gaadhnay. waxaanan aaminsanahay horumar intan ka ballaaran in aan samayn karno riyo kastana aan rumayn karno. iskaashatadan higsi hor socod oo qaybinaysa sharaabka qaybihiisa kala duwan sida biyaha sifaysan iyo sharaabka kale ee markaasi lagu soo saaro dalka gudihiisa ayaa waxay ka kooban tahay 16 xubnood oo markaasi iskugu jira 8 wiil iyo 8 gabdhood iyadoo iskaashatadu waqti xaadirkan si rasmi ah u howlblowday waana iskaashatadii koobaad ee nuuceeda ah ee markaasi laga hirgeliyo degmadaasi Dambal. halka warkaas sida tooska idinkaga imaanayana waa ESTV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga. waxa magaalada Adama ee deegaanka Oromada ka furmay shirweyne ku saabsan sidii looga gaashaaman lahaa khatarta shilalka baabuurta. Inshaar Maxamuud Xasan ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo soo koobaya. waxaa maalinta ka dambeysay soo taraysa baabuurta kala duwan ee ku soo kordhisay dunida aan ku noolahay. daba xadiga baabuurta ee ku soo badanaya dunida waxa uu keensaday khasaare naf iyo maalba leh. waxaana waqti xaadirkan ka soo baxay dunida warbixino ku wajahan khasaaraha naf iyo maalba leh ee ka imanaya hawshaas. waxaana aad looga walaacsan yahay sida ay xaaladdu noqon doonto marka la gaadho sanadka 2020 heerka ay gaari karto khatarta naf iyo maalba leh ee ka imanaysa shilalka kala duwan ee gaadiid. haddaba dalka Itoobiya oo ka mid ah wadamada uu dhaqaale sida xawliga ku socda asna ka mid ah wadamada ay ka dhacaan shilalka kala duwan ee gaadiid. waxaana sanadkan aan ku jirno oo kaliya ku nafwaayay shilalka baabuurta dad ay tiriyadu dhan tahay 3,000 oo qof halka in ka badan 10,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen hanti badanna ay ku luntay. heesta kale waxaa deegaanka Oromiya oo kaliya iyaguna ku nafwaayay shilalka baabuurta dad ay tiriyadu ka badan tahay 1,500 oo qof. waxaa waqti xaadirkan ka socda magaalada Adama ee xarunta dawlad deegaanka Oromiya kulan weyn ku saabsan sida looga gaashaaman lahaa khatarta marka ka dambeysay is soo taraysa ee ka imanaysa shilalka. maruu haddaba arrintaasi ka hadlay madaxweynaha dawlad deegaanka Oromiya mudane Mukhtaar Khadiir ayaa sheegay in ay waajib tahay in la ilaaliyo amniga shacabka isla markaana fiiro gaar ah la siiyo habka wadista baabuurta iyo weliba qaabka ay u baxayaan liisanada la siinayo wadayaasha baabuurta si loogu guuleysto wax ka qabashada hawshaas. heesta kale waxaa madaxweynuhu carabka ku dhuftay inay waqti xaadirkan ku hawlan yihiin hirgelinta qaab cusub oo lagu tacaalayo wax ka qabashada hawshaasi iyo weliba sida ay bulshada loo siin lahaa wacyigelin ku saabsan arrimaha la xidhiidha. waxaana lagu rajayn yahay marka uu dhamaado qorshahani in uu wax weyn ka qaban doono dhibaatooyinka ka imanaya shilalka baabuurta. dalka Itoobiya ayaa dadaalo xooggan ugu jira hirgelinta horumarka cagaaran sida uu warbixintani ku sheegayo Jamaal Axmed Maxamed. isbeddelka cimiladu waa mid saameyn guud ku haysa dhammaanba dunida aan ku noolahay waxaana dhowaanahan dambe soo baxaysa khasaaraha kala duwan ee naf iyo maalba leh ee ay cimiladu isbeddeshay u geysanayso goobo badan oo ka mid ah dunida aan ku noolahay. haddaba si arrintaasi looga gaashaanto waxaa laga maarmaan ah inaan ka midho dhalno geedi socodka lagu doonayo in lagaga sabatabaxo dhibaatooyinka ka iman kara isbeddelka cimilada. waxaana xusid mudan in uu dalka Itoobiya ka mid yahay wadamada safka hore kaga jira la tacaalida hawlaha lagaga hortagayo dhimista iyo weliba dabargoynta khasaare kasta oo ka iman kara arrimaha la xidhiidha isbeddelka cimilada. waxaana waqti xaadirkan socdo guud ahaanba dalka Itoobiya tallaabooyin wax ku ool ah oo lagula tacaalayo arrintaasi. waxaana si isdaba joog ah loo beeraa dhirta noocyadeeda kala duwan si loogu guuleysto hadafka ah hirgelinta horumarka cagaaran. waxaana arrintaas ka qayb qaadanaya dhammaanba muwaadiniinta u dhalatay dalka Itoobiya. geesta
kale waxaa socda kulamo kala duwan oo lagu gorfaynayo sidii loo sii xoojin lahaa howlaha lagu horumarinayo tallaabooyinka lagaga midho dhalinayo horumarka cagaaran ee uu dalka Itoobiya waqti xaadirkan tubtiisa hayo mar uu haddaba arrintaasi ka hadlay Dr. Mulugeta Mingistu oo ah maareeyaha guud ee howlaha isbeddelka dhinaca cimilada ee ka howlgala xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa sheegay in guulo wax ku ool ah laga soo hooyay hawshani laga bilaabo sanadkii 2002 tirsiga taariikhda dalkeena Itoobiya mas'uulku isagoo hadalkiisii sii wata ayaa wuxuu intaas ku daray in ay laga maarmaan tahay in guntiga loo gaabsado sii xoojinta hirgelinta howlaha horumarka cagaaran jaamacadda Unity oo kamid ah jaamacadaha sida gaarka loo leeyahay ka howlgala dalka ayaa waxa ka qalin jabiyay arday ka badan 750 arday aadan maxamed yuusuf ayaa warbixin umurtaasi ku saabsan inoo haya jaamacadda Unity oo kamid ah jaamacadaha sida gaarka loo leeyahay ee ka howlgala dalka Itoobiya ayaa waxa ka qalin jabiyay arday tiradoodu kor u dhaafayso 750 arday kuwaasi oo isugu jiray digriga koowaad iyo digriga labaad waxaana ugu horeyn munaasabadii qalin jabinta ka hadlay hormuudka jaamacadda Unity isaga oo sheegay in ay wadaan dadaalo lagu sii xoojinayo tirada iyo tayada ardayda wax ka barata jaamacaddaasi geesta kale waxa isaguna munaasabadii qalin jabinta ka soo qayb galay Sheekh Maxamed Xuseen Cali Alaamudiin isaga oo ardaydii qalin jabinaysay kula dardaarmay in ay noqdaan kuwo xoogooda iyo cilmigooda uga faa'iideeya dadkooda maadaama lagu xisaabtamayo in muddaana la sugay qalin jabintooda iyadoo gabagabadii la abaal mariyay ardaydii ku guuleysatay in ay kaalmaha koowaad galaan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala xiriiro intaasi waxay noogu eeg warkii oo aad kala socoteen ESTV anigoo Maxamed Axmed ayaa si toos idinku waramayay tan iyo intaaynu isugu imaan doono wararkan la mid ah aniga akhyaarta kala qayb gashay timinta warkan oo isku duubani waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo